sida loo wada soconay bishii January kowdeedii ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha heshiiska kala saxiixdeen heshiiska markii la kala saxiixday isfahan buu ahaa heshiiskii dambe ee rasmiga ahaana deynku lagu guda jiraa madaxweynuhu guddi uu magacaabay toddoba xubnooda muddo hawsha waday wada tashi sameeyay deegaanada soo maray imikana hawshii soo gabagabeeyay imikana hawshu waxay la taalaa sharci yaqaanada oo iyaguna insha Allah aan rajeynayno inay dhaqso soo gabagabeeyaan kadibna wada hadalkii foolka toos loo galo waxa jiray shirar uga socday Itoobiya Soomaaliya iyo Itoobiya oo arrintan ay ka wada hadlayeen idinka sidee saameynaya heshiiska xalka horta dee anagu in ay Itoobiya iyo Soomaaliya wada hadlaan wax dhibaato ma aragno waayo dalku maslaxada kale leeyihiin dal walba maslaxadiisa markuu ka hadlayo inuu dalka kale ay markaa jaarkiina wax ka xiran wada hadlaan oo daris wanaag iyo nolosho meesha ka dhacdo iyo nabadgelyo cid walba wadan Soomaaliya wadan Itoobiya wadan Djibouti wadan mandaqada wadan marka haddii Soomaaliya iyo Itoobiya ay wada hadlayaan iyagu amuuraha iyaga ka dhaxeeya ay ka wada hadlayaan oo nabadgelyada ka wada hadlayaan oo wada shaqayntooda ka hadlayaan anagu wax dhibaato ma aragno lama khusaysan Soomaaliland waxa laga wada hadlayaa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya inta badan uu ka taagan yahay waa heshiiskan Soomaaliland haddii Itoobiya ay danaheeda ka aragto heshiiskan ay iyadu Soomaaliya kala saxdo agreement kale oo bedelkeeda idinka maxay idinka meeliyaan horta anagu marka Soomaaliland maslaxadeeda iyo arrimaheeda ka hadlayso wama hadasho ama ma eegno dalkaasi hadduu halkaa tago Soomaaliland waxay soo bandhigaysaa khayraadkeedii iyo horumarkeedii iyo masaalixdeedii iyo danaheeda Itoobiya hadday ka dhex aragto waa soo dhaweynayna hadday meel kale u aragto oo duceynayna wax dhibaato nagu ma aragno horay Soomaaliya iyo Itoobiya xiriir way u lahaayeen horaba haddii heshiis gaarayaan hadaan wax alla waxaan ka qabnay ma jirto imika laftirkeeda haddii heshiis gaarayaan iyagu maslaxadoodii arrimahooda ka tashanayaan wax dhibaato ma aragno waayo Itoobiya waa dal weyn Djibouti baa calaaqada leeyihiin Suudaan bay leeyihiin Kenya leeyihiin Soomaaliya la yeelan karayaan Somaliland way la yeelan karayaan laakiin waxaanu diidanay waxa weeyaan in marka ay Itoobiya xiriir la samayso Somaliland laga dhigo ama laga qayliyo ama laga dhigo xaarana waxa weeyaan Somaliland maslaxadeeda marka ay noqoto inay ka tashato horumarka nabadda mandaqada wax u taraysa regionka iyo deegaankan ay joogno wax u taraysa waxaan filayaa inay fiican tahay in hadday Soomaaliya noqoto iyo hadday Djibouti noqoto iyo hadday dalalka kale caalamka noqoto inay soo dhaweeyaan oo arkaan wax horumarka dana wax nabadgelyada u dana taasana oo aragnaa inay umooyideen wax weyn ka tarayso waxa jirta inta badan lama haynin goobta heshiiska aad ku gelisaan adiga iyo gudidaadina waxay la arkeen idinkoo safar ku maraya xeedaha Soomaaliya halkee wada qoondaysan inaad saldhig ka siisaan sidoo marka laga hadlayo waxyaabaha laga hadlayo waxa kamid ah dekada laga hadlayo isticmaalka dekada laga hadlaya waxa laga hadlayaa oo kale Itoobiya danaynayso inay hesho naval base oo iyaduna badda ah waxa kaloo laga hadlayaa iyaduna mashaariicda kale ee isku xirka ah ee fududeynaya ganacsiga Soomaaliland iyo Itoobiya u dhaxeeya hadday noqoto wadooyin tareemo waxa soo dhan jirta daraasad u baahan yahay markaan xeebta marayeen qayb kamid ah qaybahaas laakiin qaybta kaliya ee marayna ma ahayn dekadaan u tagnay waxaan kala marnay dhulkii oo maaragtay hadday noqoto wadada dheer isku xigta Soomaaliland iyo dekada Berbera ilaa Wajaale ilaa Boorama iyo deegaanka xeebta oo dhan marka inta aanu marnayna waxaan anugu eegaynay oo sahaynay meelaha isleedahay oo ku haboon yihiin anagu go'aanka malihin anagu waxaan leenahay inaan tala bixisayno tulintaan bixinayna runtii madaxweynaha lagu gudbinay hawshaas inay markaa hawl gudida madaxweynaha iyo sharciga yaqaanku ay gacanta ku hayaan weeyaan marka dambe la wada fariistana kolley waxay soo bixi doontaa halka ay noqon doonto laakiin imika meel lagu fariistay ma jirto laakiin dawladdu waa ay samaysay daraasaadkeedii deegaanadii waana haysataa maaragtay meelaha isleedahay way ku haboon yihiin dambeyn waxa la isku aad u hadalaya kilometerka oo dadka sidoo sarfeen marka kilometerka rasmiga ah wuxuu noqonayaa horta Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiska ama isfahamkii ay kala saxeeyeen waxa ku qornaa 20 kilometer iyo 20
hase yeeshee dee maaha ama ma noqon karayo dee go-aanka dambe iyo heshiiska dhabta ee soo bixi doona khasab maaha inuu taa noqdo waa waxa suurtagalay wax badan laga bedelo hawshaas waxay ku xiran tahay wadahadalka iyo wadaxaajoodka labada dhinac waxyaabo badan baa saameyn ku yeelanaya oo maaragtay markay noqoto cabirka iyo deegaanka meesha isku xidhka dekeda iyo hadday noqoto naval baseguna dee qayb weyn waxay ka tahay in mandaqadaasi iyo meesha hawsha ka socota noqoto meel nabada marka hawshaasi hawl marka ay timaado Ethiopia iyo Somaliland ay ka wada fadhiisan doonaan weeyaan wixii macquul ah labada dhinac isla arkaan marka ku habboon tahay in baana la qaadan doonaa jeedaduna waxa weeyaan baahida Ethiopia leedahay inay la kifeeyo dhanka kalena dee Somaliland darigeeda iyo maslaxadeeda iyo hadday noqoto deegaankeeda la ilaasho marka qolo waliba kale ajenda la imanaysa ajendahaas un baana wada hadalka marka la wada hadlo ka soo bixi doonaan heshiiska rasmi baarlamaankuna dee wuxuu marka ay ku habboon tahay wixii la wada hadlay ee la fadhiisiyey qorxaa laga guray ee la isla wada gartay wixii oo dhan ay baa filayaan ugu inay ku habboon tahay laakiin hawshaasi kulli hawl madaxweynaha iyo dee xukuumadda u taalay noqonaysa waxaase kulli muhiima oo dee bulshada reer Somaliland ay muhiim tahay inay fahmaan hawshana waa hawl weli socota maadaama ay weli socoto oo barnaamijkii weli socdo oo hadalka weli socdo wax go-aan imika la go-aamiyo loodhanayo waxaasay noqonaysaa weli may dhicin marka kulley dadku warar badan oo laisla dhexmarayaan arkayo oo la sheegayo oo la leeyahay halkan ay ka dhacdayo kan intana halkaas laga samaynayo awdal bal lagu haya la bixiyay iyo deegaanadaas la bixiyay waxaa la meel la bixiyay iyo meel isniino ma jirto Ethiopia iyo Somaliland waxay wada geliyaan heshiiskaasi dhul Somaliland oo la bixinayana ma jirte waa dhulka oo ay noqon doonto Ethiopia iyo Somaliland inay ka wada heshiiyaan waxa kiradu noqonayso waxa maaragtay kale ee ganacsiga ah ee labada dhinac wada raacayaan mandaqadan imika waxaan arkaynaa mashaakilaad iyo dhibaato fara badan oo la soo dirtay oo haddaynu ka warhaynay xeebaha iyo dhibaatooyinkii imika ay bilooyinkii ugu dambeeyey la soo dirtay haddaynu arkayno arrimaha xagjirka ah ee mandaqadoo dhan aafiyey waxaan filayaa anigu heshiiskani wuxuu noqon doonaa mid soo afjara mashaakilaadka oo xagga Soomaaliya iyo Ethiopia iskaashigoodaasi uu noqon doono mid labada dhinacba wadana kala deriskana wadana